waa barnaamijkii 3 magaalo oo aan sida caadiga ah ku soo qaadano 3 magaalo wuxuuna markaan toosh ku hayaa 3 magaalo oo kala ah Buenos Aires oo ah caasimadda Argentina, Karachi oo ah magaalada ugu weyn Pakistan, iyo Wuhan oo ah magaalada ugu weyn bartamaha Shiinaha ahna magaalada uu ka dilaacay cudurka dunida mashquuliyay ee coronavirus. magaalada Buenos Aires waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalka labaad ee ugu weyn Koonfur Ameerika ee Argentina. haddii uu dalka Argentina yahayna dalka labaad ee ugu weyn Koonfurta Ameerika, caasimadiisa Buenos Airesna waa magaalada labaad ee ugu dadka badan Koonfurta Ameerika. oo Buenos Aires weyn waxaa ku nool dad gaaraya 15 milyan oo ruux. waxay dhacdaa banaanka loo yaqaano Pampas iyo sidoo kale wadnaha dhulbeereedka Argentina. waa magaalo xeebeed ay ku taalo dekedda ugu weyn dalka. magaalada Buenos Aires kama tirsana gobolka Buenos Aires, sidoo kale ma ahan caasimadda gobolkaas oo waa mid gebi ahaanba ka madax bannaan. magaca magaaladan waa Spanish waxaana loola jeedaa hawo nadiif ah ama dabayl wanaagsan. wuxuuna magaca magaaladan ka yimid ninkii qarnigii 16aad aasaasay magaaladan ee sahmiyihii lagu magacaabayay Pedro de Mendoza. wuxuuna ahaa markii hore magaca magaaladan Nuestra Señora de los Buenos Aires. qarnigii 17aad ayuuna magaca magaaladan isku bedelay Buenos Aires. waxaa mararka qaar loogu yeeraa Baariista Koonfurta Ameerika, maadaama Buenos Aires ay dhisme ahaan yara shabahdo caasimadda Faransiiska, balse qaybo ka mid ah wadooyinka Buenos Aires waxay shabahaan wadooyinka magaalada New York marka la eego nidaamka iyo sida ay u xiriirsan yihiin. ciyaarta la yiraahdo tango waxay asal ahaan ka soo jeedaa degmooyinka heerka hoose ee magaalada Buenos Aires, waxayna ahayd markii ugu horeysay ee la qaaday ciyaartan dhamaadkii qarnigii 19aad. sidoo kale magaaladan waa halka laga helo jidka ama wadada ugu ballaaran caalamka. wuxuu maraa bartamaha magaaladan waxaana lagu magacaabaa July 9 Avenue ama Avenida 9 de Julio. wadadan waxaa lagu magacaabay ama lagu sharfay kolka ay Argentina madax banaanideeda heshay ee 9kii July 1816. dhismaha ugu caansan magaaladan waa Casa Rosada, waana dhismo taariikhi ah oo mug iyo miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan, waxaana ku shaqeeyaan madaxweynaha iyo sidoo kale golaha fulinta. sidoo kale waa in la xusaa dhismaha lagu magacaabo Teatro Colón ama Teatro Colón oo ah mid ka mid ah dhismayaasha bandhig faneedyada lagu qabto ee ugu fiican caalamka sida ay sheegtay National Geographic. waxaa dhismahan la dhisayay muddo 19 sano ah, waxaana la bilaabay dhismihiisa 1889 iyadoona la dhameeyay 1908. marka laga yimaado Buenos Aires weyn isla markaana la eego dadka degan gudaha magaalada ee ku dhow 3 milyan, waxay Buenos Aires noqonaysaa magaalada ugu maktabadaha badan marka la eego dadka ku nool iyo tirada maktabadaha. waxayna leedahay wadada tareen ee dhulka hoostiisa marta ee ugu qadiimsan Latin America, waxaana la hirgeliyay 1913. Karachi waa caasimadda gobolka Sindh, waana magaalada ugu dadka badan dalka Pakistan iyo guud ahaan caalamka Islaamka. qiyaas la sameeyayna sanadkan cusub ayaa sheegaysa guud ahaan tirada dadka magaaladan inay gaarayso 21 milyan, waxaana la saadaalinayaa inay noqoto magaalada labaad ee ugu dadka badan caalamka. waa xarunta dhaqaalaha ee dalka Pakistan, waana caasimadii ugu horeysay dalka Pakistan. magaalada Islamabad ayaana 1967 noqotay caasimadda Pakistan. waqtigii Giriiga waxaa loo bixiyay magaaladan magaca Coca-Cola, haddana 1729 waxay hanatay magac kale oo ah Kolachi, kana yimid haweeney caan ahayd oo lagu magacaabayay Mai Kolachi. wuxuuna ugu dambeyn magaca magaaladan isku bedelay Karachi. waa magaalada halyeyga reer Pakistan ee Maxamed Maxamuud Alam, kaasoo ahaa baylood soo riday dagaalkii Pakistan iyo India 5 diyaaradood oo India lahayd, wuxuuna diyaaradahaasi dagaalna ku soo riday wax ka yar 1 daqiiqo. waa mid ka mid ah magaalooyinka dhanka cuntada looga dambeeyo, waxaana inta badan laga cunaa cuntooyinka Halim iyo Sindhi biryani. Karachi waxaa ku taala xarunta ururka EDI oo haysta tan iyo 1996 rikoorka adeega ambalaasta ee ugu ballaaran isla markaana bilaash ah. waa urur qiimo weyn ugu fadhiya dadka adeegiisuna bilaash yahay, waana midka ugu ballaaran ururada gaarka loo leeyahay ee ambalaasta, waxaana 1951 aasaasay Abdul Sattar EDI. waa magaalo ay ku nool yihiin dad kala dhaqan iyo diin duwan,
waxaana magaaladan soo gaareen islamarkaana degan malaayiin qofood oo kasoo kala jeedaan Afghanistan, Bangladesh, China, India, Philippines iyo Afrika. waxaa ku taala dekada ugu weyn Pakistan taasoo maareysa 60% guud ahaan xamuulka dalka, waana mid ka mid ah dekadaha ugu mashquulka badan ee dhacaan koonfurta Aasiya. sidoo kale Karachi waxay leedahay dekad kale oo lagu magacaabo Qasim oo ah iyadana midda ugu qadiimsan Pakistan. magaaladan waxaa laga helaa masjidka lagu magacaabo Granda Jamia kaasoo ah mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn caalamka. Wuhan waa magaalada uu ka dilaacay cudurka ku sii faafaya dunida ee coronavirus. haddaba marka laga yimaado cudurkan, Wuhan waa magaalo nuucee ah? waa caasimadda gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, waana magaalada ugu dadka badan gobolkaas iyo bartamaha dalka Shiinaha. marka Shiinaha oo idin la eegana waa magaalada sagaalaad ee ugu dadka badan, waxaana ku nool dadka badan 12 milyan oo qof oo dhammaantooduba maanta karantiilan. magaca magaaladanna wuxuu ka yimid midowga 3 degmo oo lagu kala magacaabo Wuchan, Hankou iyo Hanyang, waana 3 degmo oo toonka magaaladan ah maanta. waa magaalo taariikhi ah waxaana la sheegaa inay dadka ku noolaayeen magaaladan 3500 sano ka hor taariikhda miilaadiga. waqtiga ugu xun ee hoosta uga xariiqana magaaladan waa sanadkii 208 markaas oo ay ku hardameen magaaladan 3 boqortooyo, balse xaaladda ay maanta dhex dabaalanayso waa mid taasi ka duwan. 1912 waxaa magaaladan ka bilowday kacdoon lagu riday imbraadoriyadii Tashing, balse 1938 waxay ku dhacday xukunkii imbraadoriyadii Japan, waxayna Japan magaaladan ka dhisatay dhufaysyo waaweyn. waxaana maanta lagu arkayaa degmada Wuchan oo kaliya 223 derbi, waxaana guud ahaan magaaladan laga helaa 340 goobood oo taariikhi ah. meelaha ugu caansan ee magaaladan waxaa ka mid ah Towerka Yellow Karen, madxafka gobolka ay dhacdo Wuhan, iyo harada lagu magacaabo East Lake Park. sidoo kale waxay ku caan tahay warshadaha gaar ahaan kuwa biraha, waxayna ahayd dhammaadkii qarnigii 19aad magaalada ugu koriinka badan dalka Shiinaha. waxaana xarun ku leh magaaladan oo ay qaabishay 50 shirkadood oo waaweyn oo Faransiiska laga leeyahay, waana midda heshay 3 meelood meel oo ah maalgashiga Faransiiska ee dalka Shiinaha. Wuhan waxay ka mid ahayd magaalooyinkii martigeliyay koobka kubadda kolayga adduunka ee la qabtay sanadkii tagay ee 2019, waxaana ku yaalaan qaar ka mid ah jaamacadaha ugu caansan Shiinaha, isla markaana ay tiigsan jireen ardayda ajaanibta ah. maantase waa mid ay dadkii joogay xitaa aysan soo dhaafi karin guryahooda.